حطمي اليأس ولا تستسلمي، عبث الحزن بأحلام فتاة. ارفعي الرأس شموخا وارسمي بسمة تطلع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي قالي أود سلامي مقعي ورحمة. هلك آد نجد ونيسان وملاك جنان وحد ونيسان برنامج بنات حواء. برنامج بنات حواء سيدا آد مقعي سكار كيسان وبرنامج أنا أوتلك لنا هوينك سلا مركان أكو دير كلينينه وحنكون ارتقادنا هوينك أنا سلين هاي بحسامين كليهم برشدة سيدو كلا وحن دوضو وسمينا دمركا. sidoo kale waxaan ku sameynaa tartamo loo qabanaya haweenka isla markaasna aan ku bixin doono hadaayad. maantana waxaa marti inoogu ah Safiya Shukri Hilowle oo ah agaasimaha shirkadda Dashi Outlets. Safiya Shukri kusoo dhawaad janalkayga. Hay Raxma ku dhawaad janalkaaga. Adigana waxaan ku leenahay kusoo dhawaad xarunteena Dashi Outlet qaybteena Daarusalaam oo aan maanta ku sugannahay. soo dhawaad Raxma. maasha Allah waa dhawahay Safiya aad u mahadsan tahay. asxaabti isbar Safiya waa tuma. Raxma aad u mahadsan tahay. aniga magacayga sida Raxmo hore inoogu sheegtay Safiya Shukri Hilowle aan dhahaa. waxaan ahay hadda maamulaha xarunta Dashi Outlet. si kooban marka waa intaas. ما شاء الله صفية هذا وما صنتهاي وحين أقولكسا شركة أما كمبنيا أجاسمها كتهاي وحيابا وقبطو يو كودهان هولي هنا وبحين كوبان إنسي. رحمة هذا وما صنتهاي كمبنيا داش أوتلت مركي ما له وكمبني كمبنيا كجرو مجال المقدشو داش أوتلت وحن قبنا ما أنكشقينا ولaba qaybood ugu muhiimsan oo bulshada maanta ay u baahan tahay kuwaas oo kala ah kambanigan wuxuu keenaa alaabaha la isku qurxiyo ama lagu nadiifiyo ama lagu dhaashado oo magac ahaanba hadda sida ka dareemi kartid magaciisa dhaashi marka la dhaho qofka waxa waa inuu wax marsado ama isnadiifiyo ama jirkiisa uu qurxiyo. waxyaabaha la isku qurxiyaa marka waxay yihiin waxyaabo badan oo maxaa la dhahaa qofba si uu fahmay ama qofba si uu isticmaalaa. waxaa jirta marka waxyaabo annaga ka maxaa la dhahay ka Soomaali ahaan dhaqan ahaan ama diiniyan annagana dhibaayo haddana aad moodo dadkii inay isticmaalaan ama ay jirkooda ayagoo qurux raadinayo ay ku dhaashadaan ma dhihi karnayo kalarka dhan qofka inuu iska bedelo. marka dhaashi way ka duwan tahay. waxaan ka shaqeynaa waxyaabaha personal care oo ah waxa qofkaan jirkiisa tintiisa ilaa ciribtiisa uu ku nadiifin karo iyo householdiga waxyaabaha guryaha lagu nadiifiyo. personal care-ka markaa wax yar kaaga taataabto ama qofkan daryeelka jirkiisa waxaan haynaa shaambooyinka oo timaha qofku uu isticmaalayo, kreemaadka timaha loogu talagalay, vitaminska, conditionerska, hair maski oo ah nafaqooyin gabadha maanta si fudud gurigeeda ayadoo saalon aynan tagin ku hagaajisan karto oo tintana maxaa la dhahayo qurux ugu dhigayso. waxaan bixinaa marka daawooyin ama packages loogu talagalay dadka timaha ay ka halaabeen ama daawo ay ka haleysay ama daryeel xumo ama nafaqo dare ay hayso inaan consultation ku sameyno oo qofkii markaas aan siino alaabtii ku habbooneed oo jirkiisana maanta aan waxna tintiisii asalka ahayd usoo celinayso u qurxinayso. madaxa marka fitamiinaa jiro ayadoo timaha loogu talagalay oo tinta qofka markuu marsado qof walba haddii qofkan tintiisa ka cabanayo inay tinta qaleel tahay, haddii tinti uu ka cabanayo qofkan maxaa la dhahayo inay agoolka galay oo kale, hadduu qofka ka cabanayo tinti inay ka go-go-eyso, hadduu qofka ka cabanayo tinta midabkeeda oo kale inuu dilan yahay daawooyin u fiican inaan u hayno. sidoo kaleeta marka jirka marka la dhaho kareemaad dabiici ah oo nature ah oo hadda dabiici markaan ka hadlayno waxa waaye tusaale oo kale waxaa ka mid ah qofkii hadda tusaale markaan fiirino kareemkan oo kale markaa soo qabatid maadaama xarunta aan joogno hadda kan oo kale jirkaa loogu talagalay zaytuun ka samaysan yahay. zaytuunka caadiga hadda aan naqaano asagii waxa waaye kareem laga dhigay packages jiro oo qofkii hadda dadka qaar markii hore waxay ahayd waxyaabo badan oo isbedelo way jiraan xataa dadka qaar markii
gabadha maanta ay guursan rabta xataa waxaa dhici jirta in la dhaho bal kastoo iscaday taa weliga taabanin xataa waxyaaba ay marsanaysay laakiin hadda backage-kan oo kale qofku waxa waa scrubkii saabuuntiisii creamkiisii saliidiisii qofku wasaqda dhanka jebinaysa jirkeeda quruxu noqonayo dambina aan kasoo gaaraynin oo qofka hadda dadkii gabadha danaynaysa maxaa la dhahaa ama caadiyan xilli kasta in la isku xiibayta laakiin qofka waqtigeeda wuxuu soo dhow yahay xataa ay kusii marsan karto waxaa jirta marka packages asaas u bixino kareemaadka jirka la marsanaayo wejiga gabdhaha qaar daawooyinka iyo waxyaabahaas halleeyeen qofka hadduu rabo inuu iska dhaafo inaan la talin ku sameyno oo maxaa la dhahaa jirkiisa maxaa ku habboon laakiin bisharda qofka inuu joojinayo daawadaasi waxaa kaloo ayadana kamid ah tusaale marka soo qaadana hadda dadka waxaa haynaa jirka personal care markaan ku jirno deodorantiga aada muhiim u yahay oo deodorantiga hadda waxaa loogu talagalo qofka kilkilaha inuu marsado rag iyo dumar oo kale leeyahay wax caraf oo zaa-ida qofku waxa ku ridaayo ama gabadhi markay marsato laga dareemayo ma ahan oo caraftiisa zaa-id ay tahay laakiin haddana wuxuu sameynaa qofka inay noqoto si murtaaxa ay magaaladeeda ku mari karto ayadina aan la dhibsanaynin ayadina aynan ismacaynin oo maxaa la dhahaaye raggina sidoo kaleeto oo deodorantigaas hadda aada uu muhiim u yahay oo dadkii si gaar ahaan marka la dhahda dhalinyarada oo kaleeto qaarkood inay deodorant isticmaal ama qaar hataa waxaa jirta lasoo mara dhahaayo shiirka wuxuuba kamid yahay qofkan inuu soo shiiro waa wax dabiici ah laakiin anaga waxaan sameynayna waxaa waaye deodorantigaas markuu isticmaalo qofkii ada inaanan la dhibsanayn almuhiim inaan fahansiino waxaa kaloo kamid a marka personal careka marka hadda ka hadleyno lip balming oo kale oo qofkan rooseetada ama xamuurada dadkeena qaar dadka soomaalida qaar waxay ka aaminsan yihiin inay yihiin waxaan wax dembiya ama doonfaar maa laga sameeyey kan maa la yeelay ama kalarkii bishirihii isbedelaya marka anaga waxaa ukeena hadda lip balming oo fisliin camal ah oo fisliinka yaqaana dadkeena kalarkaaga waxba aan ka bedelayn haddana faruurihi kale aan kaa jeexmayn tusaale hadda marka adiga ama indhashareer xirantoo kale indhashareer qaadanaysid waxaa macquula afka inuu qalleelsan hawsi ku noqdo maanta dhan neeftan qofku ku ceshmaysan aftirkeeda waxaa imaanayso maxaa la dhahaa hadhow in raaixada qofka si isku bedesho marka ayagoo fruits laga sameeyey sidoo kaleeta marka waxaa kamid a intaas hadda aan kuusoo sheegay raxma waa maxaa la dhahaa waxyaabo lagu kalsoonaan karo taasoo macnaheeda marka aan la jeedno inay leeyihiin alaab kastoo dhaashi ay keento waxay leedahay shahaadooyin ay wadataa had tusaale kan markaa fiiris meeshaan waxaa ku levelka ku dhegan xalaal level ku dhegan xalaal level macnaheedu waxa waaye waxaan diiniyan wax dhilminkaas u gaarayo oo alaabteen anaga hadda waxaan ka keenaa dhammaan Indonesia ka keenaa Indonesia waxa waaye wadanka maanta ugu muslimiinta badan ama boqolkiiba maxaa la dhahaa 85 dadkooda waa muslim markii bulshada adduunka loo fiiriyana tirada dad muslina ugu badan wadanka ay ku nool yihiin waa ayadoo saasta haddana waxaa jirto dad non-Christian oo non-Muslim oo caqal meeshaas degan dadkaas oo kaleeto marka shirkadaha ay leeyihiin certificate xalaal level oo Indonesia wasaaradda arrimaha awqaafta diinta ay bixisaa jirto shirkada haysato boqolkiiba boqol waa lagu kalsoonaan karaa oo wax dhibaato ay ku keenaysa ma lahan sidoo kaleeto waxay wataan in ay yihiin maxaa la dhahaa dermatologically tested wax qofkani caafimaadkiisa aan wax ka dhibeyn marka dhaash soo gasho ama qofku soo galo kareemkaana rabaa qaadana ama kareem maxaa qurxinaya ama kan seewaay uma lagu qaadanaya waxaa lagu beesgareynaa qofkan in jirkiisa lagu beesgareeyo jirkaada qaleel miyaa maxaa sensitive ku tahay maxaa xasaasiyad ku qabtaa maxaa waxaa insas loo siiyo sidoo kaleeta marka householdiga markaan usoo noqdo householdiga waa waxyaabaha guryaha lagu nadiifiyo oo gurigaaga tusaale kaleeto hadda waxaa kamid ah in gurigi waxaa kamid ah maxaa la dhahaa dharkii maxaa lagu dhaqaa waxaa kamid ah alaabta qofka muxuu ku dhaqaa waxaa kamid ah qofkan maxaa la dhahaa masquulihii maxaa loo isticmaalaa mutuleelkii meeshii ay ka ahayd in oomale looda isticmaalo ina anagii bedelnay oo maxay hayto dadkii adigoo dalkaaga jooga inaa wax walba isticmaali kartid oo oomadii oo kaleeto waxaa macquula sometimes in ay badan tahay waxyaabaha maxaa la dhahaa kiimikada iyo wixii ku jira gacmihii jirki maadaama khasaaradii ama mashiinka lagu dhaqaayo qofkan gacanta doogu isticmaalada inta badan gabdhaha waa aragtay waxaa lagu leeyahay gacmihii ooma iga haleysay alaabta markaa dhaqaayo oo kaleeto saan marka in alaab oomadina jeermis dilana ah saliidaas iyo waxaasna ka baabi'inaysa iyo subaga nadiifinayso jirkeedna aan waxba u keysanaynin
musqulaha sidoo kale daawooyinka musqulaha lagu dhaqaayo maxaa la dhahaa carfisooyinka carfisada guriga qofka uu ku buufsanaayo qofka armaajada lafteeda markaa dharka gelisay ama boorsada dharka markaa gelisay waa aragta marka dharka lagu xareeyo in qofkii waxaa alwaaxyo kale ama boorsada si kaleeto ay noqonaysa carafti boorsada markii ama armaajada carfisa la gelinaayo taasoo carafta markii anaga waxayna wax degan waayo wax qofkina uu ku dooqmaayo ama waxa ku noqonayo ma ahan waxaa kaloo jirta marka ayadana xafiisyada dadka xafiisyada leh eesiyada carfisooyinka loogu talagalay sidoo kaleeto waxyaabaha loogu talagalay maxaa la dhahaa qofkan gaarigiisa oo kale inuu saarto marka waxaan isleeyahay waa kugu badiyay laakiin waa soo koobay dhaashi waxaa kaloo jirta marka intaas laga tago aan rabay maadaama warbixin guud oo dhaashi ay tahay in dadka marka qaarkiis waxay isleeyihiin maxaa la dhahaa dhaashi ama gabdhaha le loogu talagalayo ama dhalinyarada loogu talagalo marka anaga waxaa leenahay qof walba oo maqaar leh qof walba oo micnaha haddaaba adi maqaar leedahay daryeel waa u baahan tahay ciyaal ahaaw waayel ahaaw nin ahaaw naag ahaaw waxa doonto qof kasta wuu dhaashan karaa oo dhaashiga inuu isticmaali karo isbishal hadda ciyaalka oo kale markaa dhahno waxaa hayna kareemaad shaambooyinka u gooniya cunuga markuu aada u yaryahay lamid ma ahan waxyaabahan kale ma isticmaali karo laakiin anagii wixiina dadku isku wada qasan yihiin oo qof kasta maxaa la dhahaa shaambada waxaa arkay cunuga hadda dhashta xatee mararka qaarna shaambo waxaa loogu kuleenaa marka ayadana waxaa haynaa alaab gooniho caruurta loogu talagalay si guud marka dhaashi waa taas soo dhawow raxmo halku dhigeena dhaashana waxaa waaye quruxdu waa qofnimadaada oo qof walba inuu qurxan yahay qofnimadiisa ay ku xiran tahay maasha allah safiya aada u mahadsan tahay waa rajeynayaa si fiican in la idinkugu sharxay yani dhaashi iyo waxyaabahay qabato intaas kadib waxaan rabaa inaan ku weydiiyo yani howlahan aad qabanaysaan maasha allah aadka u quruxda badan ma jirtaa cid karab idinku siisay ama hay-ad ahaato ama dad kale oo shakhsiyaad caadi ah oo idinku caawiyay barnaamijkan raxma aada u mahadsan tahay waa su-aal muhiim ah annaga hadda markii la dhaho dhaashi waa company markii lagu dhahane micnaha waa company dad badan ay leeyihiin waxaan rabnaa marka bulshadeena dad badan waa sax oo hadda markay aragtid qof programmerkuu sameeyo ama maxaa la dhahaaye dad ay wax sameeyaan waxa ugu badan waxa waa qofku wuxuu leeyahay intay ka keenteen fankan yaa lacagtan baxsho yaasaan hay-ad hebel maa waxa ku siisay waa waxyaabaha dadkeena ay u barteen laakiin waxaan rabnaa anaga ka dhaashi ahaan inaan u sheegno dadka dhaashi ma jirto hay-ad maanta ama ha ahaato maxaa la dhahaa isheeg hay-ad ajnabi ama hay-ad isheeg maxaa la dhahaa soomaali ah oo gudaha ah oo dhaashi maalgelisa ama waxa u sameysay dhaashi waxaa iskale shakhsiyaad soomaali ah waxaa iskale maxaa la dhahaa odayaal soomaaliyeed gabdho soomaaliyeed marka waa wax dadka soomaalida ay leeyihiin marka meeshaas naftirkeeda waxaan rabaa in dadkeeni ayaga naftirkooda maxaa la dhahaay ogaadaan in annaga aanan u baahnayn bis maanta inay hay-adan taakuleyso laakiin dadkii soomaalida ayaga ay wax qabsan karaan oo wax ay samaysan karaan maxaa la dhahaay isheeg laakiin waa inay lahaadaan waxaagii hadaf ujeedo maxaa la dhahaay dadkiina aa u keentid wax anfacaya maanta oo la raaci karo lagu kalsoonaan karo maasha allah aada u mahadsan tahay safiya ma is leedahay yani adeegyadan aad keenteen dadka way anfacayaan ama ma jiraan yani waxyaabo kale aa uga duwan tihiin magaalada waxaa ka furan cosmeticsyo fara badana ka furan waa keenaa shoobino maxaa yani dadkaas maxaa uga duwan tihiin idinka dhaashi ahaan raxma aada u mahadsan tahay horta markii dhaashi la dhaho adeegyada ay keento waa dareemi kartaa qofka markuu wax bilaabo waxa aa keentay in maanta aad samaysid marketing ama inaa maanta maxaa la dhahaa ay wixii aad suuq gelisid ama wixii inaa maxaa la dhahaa la dhaho asxaabtaadii oo kaleeto raxma meeshaan furatay maha aan tagno meesha aan maxaa la dhahaa kasoo adeegano laakiin haddayna alaabtaada tayo lahayn maanta ama waxa aa keentay iyo wax taraynin wax sii soconaya ma naqanayso ilaan qof maalin kasto ama kuu ceeb asturaysa ama ku dhehaysa ma jirto annaga horta dhaashi markii la dhaho ganacsiyada caadigaan lamid nahay oo hadda waxa ugu duwanahoo la dhahaayo ma jirto si guud ganacsi waa laakiin maxaa la gaarnahay oo kaga gaar tahay ganacsiyada kale ganacsiyada kaleeto waxyaabaha dhaashi ay kaga gaar tahay
waxaan kugu soo koobaa laba qodob. qodobka koowaad oo ah team dhaashi ama dadka shaqaalaha dhaashi anaga markaan oo meesha aan ka shaqeyno oo ka shaqeeyaan number 1 waxa waaye dad u carbisan ama u diyaarsan shaqada ay qabanayaan. dad u carbisan oo u diyaarsan shaqada ay qabanayaan markii la dhahaa qofkan waxa waaye dhaashi maanta dad ka shaqeeya dad dhalinyaro ah dhalinyaro haddana wax baratay oo maanta dad wax fahansan ah oo qofka ugu hooseeya maanta inuu dugsi sare uu dhameeyay sidoo kaleeto inay soo qaateen tababaro ay soo mareen inay soo mareen heerar kala duwan. tusaale qofkan inuu si voluntary ku shaqeeyo in qofkan maxaa la dhahaayay muddo tababar la siiyo mar walba la update gareeyo aqoon u leeyahay shaygan uu gadaayo muxuu ka kooban yahay yaa isticmaali karo yaa maxay ahayto dhibaato u geysanaya intaasoo dhan dad og waaye oo soo tababaran. shaqaalaheena marka oo dhaashi joogo dad waxa waaye tababaran u carbisan shaqada ay qabanayaan. qodobka ku xiga waxay tahay alaabta anaga aan hayno productiga dhaashi productigeena sida hadaati hore kugu sheegay waxaan ka fiirnaa anaga quality-ga markaan dhahayo shayga marka hadduu maanta quality lahaynin ama maxaa la dhahaye dhaashi markii la dhaho quality-ga waxaa ku ogaan kartaa anaga hadda alaabteena Indonesia ka keenaa dhaashi waxay wakiil u tahay kambaniyo Indonesia ku yaala oo hadda alaabaha dhaashi markaad fiirisid dhaashi kale leen ka helaysaa oo wax magaaladii ama nala yaalo way jiraan karaan sometimes waxyaabo hadda international brand oo kaleeto magac wato laakiin waan ka duwanahay anaga waa Indonesia kusoo sameynay alaabta waxaan kasoo qaadnay kambaniga alaabta sameynaya oo anaga waxa uu ah second hand anaga ah sidaas darteed marka waxaa dhacayso shayga maanta haddii wax ka yimaadaan in aan haysano kalsooni ama maxaa la dhahaa meel aan kula laabano aan dhihi karno maxaa ka qaldanay maxaa si ka ah ama maxaa la dhahaa ciladaas ka imaaday shayga lagu kalsoonaan karno wixii maqaarka bini'aadamka iyo wax kale weyn labadaas qodob waa in shaqaalihii ay yihiin kuwa diyaarsan in productiga uu yahay product quality dhaashi intaas la gaar tahay. ما شاء الله صفية هذا وصلتها حارب عينك فيديو بتجيران وعقبت كرقرتين أنت تكون كل جرتين برامج كان ها يعني عقبت أنت بشري كي ما تيسير من قابلين يا عقبت كريم. رحمة هذا أمها سنتا ورتش شغل كاستمر في القبنا يا أما محل لها هون مركي أودي ama bulshadii aad ku dhex jirtid laba kala kulmeen in dadkii maxaa la dhahaa ka heshid dad ku soo dhaweeyo ku dhiirigeliyo iyo dad maxaa la dhahaa ii sheegeen kaaga soo horjeesto ama negative waxa ku siinayo kale hamigaaga iyo rajadaada dila anaga horta alxamdulilah kambani ujeedo iyo hadaf leh waaye qof kale markuu hadaf leeyahay ama meel u socdida og tahay caqabad kasta oo kaa hor imaado maxaa la dhahaa ma u waxa dhigaysido ama ma ku niyad jebinaya ilaa hadafkaaga waa meesha u socdid. anaga marka hadda dhaashi alxamdulilah wax caqabad weyn oo aan la furin lama jirto oo bulshadii in position maanta banaana aan u buuxinin halka mid oo imaan kartaa waxay tahay dadka mararka qaarkood waxa markaan bilaabayna ama bilowgii aan ahayn in la dhahaayay war waxaan idinka awoodiyay magaaladan shopping hadda sameynaysid ama waxyaabo la qaashay hadda sameynaysid waxa ka shaqeynaa waxa waa daaratid inaa lacag fiican ka heshid ama maxaa la dhahaa meeshaan ee meel ku kala socoto ee noqoto waa in waxyaabaha la isku cadeeyo aad keentid oo kale kareem caadi la marsanays waxa naturalka ay haysid waqti qaadanay qofka wax horay waxa ma ahan waxa jirta waxyaabaha la isku cadeeyo oo kale dadka magaalada ka warqabaan waxa lagu leeyahay 3 maalin hadda isbedeli weysid 1 week hadda isbedeli weysid lacagtaada waa lagu celinaa laakiin taas marka waxa waaye mogtahay qofkii u jeedaabo hal maalin marsi maqaarkaagii anaga meeshaan wasaq ka jibinayno hadda tusaale scrub oo kale wasaq lagu jibiyaa la dhahaa qofkaas markuu daawo marsado waxa dhacaysa inuu maqaarkiisa jijibiyo oo maqaarkii caadiga ahaaba uu fiiqmay marka taas oo kaleeto marka hore way jiraan inay dadka dhahaayeen war meeshaan natural ma yaqaan Soomaaliya la dhahay waxa isku daalinaysiin laakiin hadda dadku waxa ogaanay inay baahi taagneed ay tahay oo dadku ay u baahan yihiin oo waxa la dhahaayeen dhaashi ma sha Allah wax fiican ay keenteen wixii noo sii joogtay maxaa la dhahaa alaabahan waa loo baahnaa annagana marka maadaama aan dadkii magaalada joogay baahidaas dhammaan aan aragnay way waxyaabaha waxa u keenay. صفية هذا وما صنتها واسي وناكسن داش وحا وملينا إني فرصة fiican tahay gabdho badan oo iscadeen lahaa ama uu hore isku cadeeyay oo wajig ka halaabay inay xal u heshay yani daawooyin dabiici ah ama kareemo oo dabiici ah maqaarka aan wax u yareynin
isla markaasna quruxdaada iyo bilicdaada kuu soo celinaya inay u keentay maasha allah wax aada loogu farxa waayo aada wanaagsan tihiin. Safiya waxaan rabaa inaan ku weydiiyo mustaqbalka maxaa hiigsanaysaan ama aad jeceshihiin yani waxyaabo kale inaad kusoo dartaan. raxma aada u mahadsan tahay insha allah hadduu ilaahay ka raali noqdo mustaqbalka iyo hamigeena waxa waaye maxaa la dhahaa dadkina adeegyadoodii aan usii badino oo waxyaabo badan ay bulshada u baahan tahay aan u keenno oo hadda maxaa la dhahayay kareemaadkii jirka haddii ahaan lahaayeen haddii timihi haddii guryaha waxyaabo badan waxaa jirta hadda dhammaan wixii loo baahnaa maanan dhammaystirin laakiin si tartiib tartiiba inaan dadkii maxaa la dhahaa usii ballaarino waxaan rajaynaynaa qof walba oo hadda adeegeena ku kooban yahay magaalada muqdisho in qof walba oo soomaali ahna meeshuu joogaba inaan gaarsiin doono hadduu ilaahay ka raali noqdo oo hadda annaga mar walba waxaan lanaha bulshadii maxaa la dhahaa dhaashi xarumaheeda markaan ka hadleyno hadda xamarweyne suqbacaad madiina daarsalaam dabka xarunta marka xarunta kaloo xigtane dariskaaga ka filo marka dariskaaga magaalada layna ku ekaanayso ilaa gobolada inay gaarto oo qof walba oo soomaali meesha jooga insha allah inaan gaarsiino dhaashiga. maasha allah aada wanaagsantahay Safiya. barnaamijka maadaama uu yahay barnaamij aan dhiirigelinayno dumarka ama haweenka rabaan inay ganacsi sameeyaan ama kuwa bilaabeen iyo kuwa hadda ku haminayo oo adigoo kale yani rabaan inay hiigsi leh sidaadoo kale yani meesha gaartoo kale inay gaaraan maxaa aad kula talin lahayd maxaa dhihi lahayd? raxma horta aada u mahadsan tahay talada iyo waxyaabahaas markii la dhawarto waxay ku fiican tahay qofka markuu muddo badan wixii uu ku jiray anaga weli marxalad waxaan joognaa bilow ah insha allah ilaahay hanoo rumeeya hadafkeena si guud marka dadka ganacsatada ah ama gabdhaha ama ragga ama maxaa la dhahaa qof walbo si guud tala guud waxaan usiin lahaa inta yar hadda anaga aan aragnaa ama khibradeena inta aan ku jirnay in horta qofkani mar walbo ujeedo inaad lahaatid qofkan inuu leeyahay hadaf iyo wuxuu hiigsanahay ama meeluu rabo inuu gaaro teeda kaleetane dadkii kaliya aanan laga ganacsanin aan laga ganacsan macnaheeda in aad ujeedadaada ahayn meeshan inaad lacag ka heshid laakiin adigana meesha faa'iido ka hel dadkina wax faa'iido u leh oo markaan dhahaayo in alaabtii tayadeeda la hubiyo in maxaa la dhahaa macaamiisha qanaacadooda mar walba la ilaaliyo in qofkan maxaa la dhahaa alla kacabsiga uu ku daro oo waxaan arkeenaysa naftirkooda haddaa isdhahda meeshan maxaa percentage ka faa'iida wax walba iska keeno adigana dadkina kuuga fiicno adigana maxaa la dhahaa dhibaatooyina kaasoo gaaraayo marka qof walbo in alla kacabsigana uu ku dadaalo ujeedana uu lahaado wixii uu keenayo inay dhaqdaan wax bulshada faa'iido u leh markaa wax bilaabaysidna inaad raadisid angal banaan ama meel banaan oo baahi bulshadii banaan inay jirto oo in la buuxiyo u baahan laakiin haddaa isdhahay maanta raxma dukaankan furata maasha allah way u kala kacday maanta intaasoo meelay mare adina ka daba fur aadan ogeyn meeshaan dhexdeeda wax ku jiro gudaheeda caqabadaha qofkaanayti uu kasoo gudba iyo meeshaas uu ku gaaro marka wax walba waxay u baahan yihiin ka fiirsasho iyo dadaal qofka inuu sameeyo. ما شاء الله صفية آدم ومحسنتها يا أصحاب البرنامج كان إنتاس أيوكي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حطمي اليأس ولا تستسلمي عبث الحزن بأحلام فتاة ارفع الرأس شموخا وارسمي